nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino wareer kalamaanow kolay khayr ma sheegtaan maxaa haysan maanta maxaa haysan war nabadii nool laahayna war tamboorka dhagan hooban hayna nabadii nool aad iyo aad fadana war diinka waashay daymada kuriya ma hadda bar manuujiyaw muradkiis helo la yiri meel deenas kaamara war maxkamadda gobolka dad musuqmaasuq ku eedaysan inay lacag kala qabeeyeen ayay xukuntay baa la yiri marka doctor Muuse muxuu u cuskaday dadkan lacagtu siday u kala badan tahay iyo sida ay u kala yar tahay se xukun limida sharcigu ma sheegaya gudoomiyaha maxkamadda sare waa nin Soomaaliland indhaha quraanjadana uu leeyahay meesha wax gelisiina isaga laba farood ka soo saaraya wareedha madaxweynaha maamul goboleedyada xisaab celinta aad bay u nicib yihiin baa la yiri ma la soo xiro war madaxweynaha Jubbaland wuxuu yiri 600 kun oo la siiro oo amniga lagu hadlay wax badan ma aanu yiri shoobiga Kamaroono war ninkan been badan 500 shilin oo shaqaysa goorma u dambeysay xilligii Cabdiqaasina uu dambeysay walaalayaal lacagtiina way gabowday tan Soomaaliland ma isticmaashan war nimayo gudoomiyaha degmada Howlwadaag iyo taliyaha saldhigga Kaaraan iyaguna musuq miyay galeen waatan xilka laga xayubshay warnamada Sultaan Cabdinaasir Jaamacseed oo gaalkacay ka hadlayaan dhageystay wuxuu yiri dadkii magaaladan lahaa oo galmudug lahaa ayaa gaalkacay shirgo furmaya marka waxaan la yaabanahay suldaanku ma reer gaalkacay kaliya inay galmudug leeyihiin buu u qaatay mase wuxuu u maleeyay waagii in la joogo galmudug gaalkacay ku ekeed oo inay ballaaratay buu san ogeyn war inoo bilaartay kulligan eedeedan ogneed madaxweyne waalati wilnahada ihal ra'iisul wasaare wareeda warkaaga xunka ku xasuustay Allahu naxariiso markii General Aidid dhintay baa wiilkiisii Xuseen Aidid wax laga dhigay gudoomiyaha SNA iyo madaxweynaha Salbalaar kadibna isbartibu wuxuu u qodbeeyay taageerayaashiisii wuxuu yiri dadkan waa dad fiican waana dadkii aabahay marka suldaanku la yaab ma laho meeshii Xuseen Aidid joogay buu asna jooga maxaa ka rabtaa warniyoodu warantee maxaad meeytida u soo xabaala toosinaysaa war waxaan dhintay Allah u naxariistay waa wariye Cabdirasaaq Qosley inaad dhimatay yahay adigu qandha us weynaa ku dishay war heeda warkiina xunaan ku xasuustay nin tuuga ayaa guursaday todobadii markuu ka soo baxay ayuu wuxuu siriniyo qaraabo oo xirfadaada adeegso biilkan minanka markaasoo inta baxo waxba soo waayay markuu soo waayay asoo murugsan oo isdhahay aroos cusub waa tahay reerkina biil ma yeelan maxad yeeshaa oo guriga yimid markii uu yimid buu wuxuu arkay xaaskiisii oo hilib jarjaraysay mid ay bislaysay maraqoo baaquli yar ku jiro oo adduun iskor saaran yahay markaasuu yaabo wuxuu ku yiri xagee wax ka keenta anigu sidaa ma ogeyn markaasay inta fiirisay waxay ugu jawaabtay ari badan oo halka maraaba arkay markaasaa waxaan isiri iyo xaajigu ka baahane laba xababaan ka soo qabsado waan qalay markaasuu inta qoslo wuxuu yiri Allah ilaahay inta isku waarayaan leenahay horaan waxaa loo yiri tuuqi taraax waa dhaqmi karaan waliyo war ma haysaane ergi qaramada midoobay ayaa Soomaaliland tagay marka waxaan u maleeynaa inuu ictiraaf noo wado warnimayo ergeygi qaramada midoobay duusa Maraabiya cadaada markuu u qaybsami waayay ayuu gaalkacyo kula ballamay kooxdii khilaafka galmudug nimayo war ma haysaane Soomaaliland waxa laga xusay maalintii la asaasay ciidanka booliiska Soomaaliland waxaana la sheegay in la asaasay 1993 haddaba waa la yaabe jaamac maxamed qaalib iyo cabdulqaadir dheel 70 sano ka badan ayay booliis ahaayeen waa maxay midkan 93 ah waa la yaab war odagaan been badana war taliyii hore booliiska Soomaaliya ma taqaanide laga aamusniyo maxamed abshir haban buu ahaa warniyo waa waalantiine Soomaaliland waxay dhalatay 1991 ay xorriyadeedii ay la soo noqotay niyo war markaas koonfur galbeed isku daatiin war waxa la xusay waa booliiska sanam nimayo wax ma ogidin koodhe horaan waxaa loo yiri dhalin dhafoorkay ku taala war booliiskan la sheegayo kii ayantan ilmaha fooda ka jirayay Soomaha war gudoomiye ku xigeenka amniga Tuulax waxa uu yiri amarkaas amar annaka naga soo baxay ma ahan laba taliya ku tagrifashay ayakana talaaba laga qaadaya waraadaaya aqalkiisa oo maalmahan isqaad qaaday yaa shiiqiyay shirkiisi war markii horeyba dudul ciid ka dhaqayeen warnimayo hadii khayra iyo farmaajis khilaafi waayeen madaxda maamul goboleedyadu inay khilaafaan waa wax gara sababtoo ah dadku waa khilaaf ku nool warnimayo horta awal horta khilaafka waxba laga heli jirayo ra'iisul wasaare la bedelay iyo xukuumad cusub la dhisay wax jabjafaa laga heli jiray laakiin nimankan isku dhagan
laakiin sidii meesha loo keenay irid furanba ma hayno war dustuskaa ku dharagteene wallaahi nu daalkiinnu dheeraan war hadhaha adinku balaayada maxaad ku jeceshihiin allah naga bixiye war adeer warkaasi waa warkii aan baro war lankuna leeyi bilaayada heedhe maxaa ku baratagna leeye usi aydiid buu abogyoka buuran bilaayi ibaasu war ceydid waa dad nool waxa ka buuran buukaxa ka daran war roowow walaayo isla ka eeday jiri ka tanasuli ina la dooradon hagaan leeye war hay'adda nabad sugiddu waxay tidhi wasiirkii hore oo amniga qalinkiisa raadkiisaa batay dabagal baana ku socda adeer kol hadduu qalinku seexiisuu bato malmaluuqna wuu badan yihi doorkaan naga dhex gelini wasiirkiina wuxuu yidhi maxkamadaan la tiigsanayaa sharcigaan kula baxayna war nabad sugidda maxaad baynu uga sheegaysaa waa tii boolis laga dhigay war taliyii nabad sugiddaba baydhabu iska sharaxayo ninka yaa baaritaan ku samaynaya war hadhaha gabadhii xisaabiyaha guud ahayd waxay tidhi baylaan shaqadeedii kala baxsan waaye war xisaabiyahan guud ma lacag baa ku luntay kollay bayle meeshii beese lagu sheego waa ku xaadir war gabadhu waa xisaabiye guud in la xisaabiye muu diidan yahay war horta bayle miyaanu qaadiroonba war mawluudku si baa dhow safaylaan gaadii doonta goodhan oo shibnoodhe war hadhaha oran baan qaati ka taagnayn cabdiqalina intuu taagan yahay ka nabadgeli mayne nagu kala wadanayo meeshaan أول بدولة ثانية عندك أولا نلوك والسلام عليكم.